bismillaah assalaamu calaykum soo dhawaada walaalayaal janalku waa janalkiinii like saar subscribe sameeya share gareeya maanta waxaa idiin wadaa faa-iidada ku jirta digirta maadaama anigu aan soo bartay nutrition oo faa-iidooyinka cuntooyinka iyo nutritionka ay ku saabsan yihiin maanta waxaan kaga sheekeynayaa digirta faa-iidada ay leedahay digirta waxaa lagu tiriyaa cuno faa-iido badan xambaarsan oo haddana la awoodi karo digirtu waxay leedahay faa-iido badan oo u dhiganta tan hilibka digirta waxaa laga helaa 20 walxood oo jirka faa-iido ugu jiro waxaana kala yihiin vitamin C, vitamin K, vitamin B1, B2, B6, folic acid, calcium, iron, magnesium, phosphate, potassium, zinc, copper, selenium, omega 3, omega 6, protein iyo tamar intaasba waa nafaqo ku kaydsan digirta intaas kadib faa-iidada ay leedahay jirka ay u leedahay digirta waxaa ka mid ah 1 sun saaridda antioxidant sunta ayay jirka ka saartaa digirta waxaa lagu tiriyaa cunooyinka ugu badan ee laga helo walxaha sunta ka saara jirka daraasad lagu sameeyey 100 cuno oo laga helo maadooyinka sunta saara digirta ayaa ugu horeysay lambar 2 dheefshiidka digirta waxay ka mid tahay baalaleyda waxa ku jira waxyaabo badan oo u roon dheefshiidka digirtu way sahlan tahay in calooshu shiido waxa ay ka hortagtaa calool fadhiga waxay toos u dhigtaa kolestaroolka oo hoos ay u dhigtaa jirka ay ka dhameysaa qofkii mar walba cuna waxay kaloo yareysaa halista cudurrada wadnaha iyo kacsanaanta sokorta lambarka 3 dhisidda lafaha iyo murqaha sida aan hore inkugu sheegay in digirtu gali karto beddelka hilibka oo uu qofku kaga maarmi karo cunista hilibka hadduu haysto digir sababtuna waa borotiinka ka buuxa hal koob oo digir ah waxaa laga helayaa 15 milligaraam oo borotiin ah lambarka 4 dhiigyarida digirtu waxaa ka buuxa birta qofka joogteeyana isma arkaan dhiigyari waana sababta loogula dardaarmo hooyooyinka uurka leh iyo caruurta oo u baahan bir badan in ay ku dadaalaan cunista digirta lambarka 5 waa digirta waa xusuusta digirta waxyaabaha ay kordhiso digirtu waxyaabaha ka buuxa waxaa ka mid ah vitamin B oo dhowr ah fitamiinkan wuxuu aad ugu roon yahay caafimaadka maskaxda wuxuu kordhiyaa foojignaanta xusuusta wuxuuna ka hortagaa hurdo la-aanta waxaa kaloo la arkay in digirtu yareyso halista cudurka xusuusta lumiya qaybta 6 ee waxtarka waxaa ka mid ah digirtu leedahay adkeynta lafaha iyo ilkaha digirtu waxay adkeysaa lafaha maadaama ay xambaarsan tahay waxyaabaha ay lafuhu u baahan yihiin waxay kaloo yareysaa baruurta aan jirka faa-iidada u lahayn sidaasna waxay ku yareysaa cudurrada wadnaha ku dhaco dadka iscaateynaya oo kale digirta waa inay cunaan wax cayila kuguma soo kordhinayso vitamiinsna waa ka helaysaa dhiiggaagana ma yaraanayo marka waxaan kula talinayaa digirta intaa cuntaan intaa gaajo isku dili lahaydeen ama cunooyin kale oo dufan iyo waxaas le aan cuni lahaydeen digirtu waxay ka mid ahaan jirtay cunooyinka ay Soomaalidu aad ugu dadaalaan qaasatan xilliga cashada caafimaad badanna way ka heli jireen laakiin waxaad moodaa inuu isticmaalkeedu ku sii yaraanayo magaalooyinka inkastoo waalidku uu badanaa og yahay faa-iidada ku jirto laakiin digir nacaybku waxay badanaa ka timaadaa caruurta iyo dhalinyarada waxaana jira dad badan oo aaminsan cunista digirta inaysan ilbaxnimada ka mid ahayn waana sababta keenaysa in aan lagu darin liiska cunooyinka laga dalbado maqaayadaha maadaama dalabkeedu uu yaryahay arrintanna waa arrin aan wada ognahay dhalinyarada iyo caruurta
caruurta waaba la siin karaa, waalidkooda way ku qasbi karaan, laakiin dhalinyarada waa inay ogaadaan faa-iidooyinka ku jira digirta oo ay cunaan si ay xoog iyo intaba u yeeshaan, lafahooda u adkaadaan. Khaasatan ilkaha aad bay u adkaysaa. waxaa arkaysaa dadkii yaryaraayo dhan ilkihii aada eber ka wada yihiin. digirta marka faa-iidadaasoo dhan ay inoo leedahay, waa inaan isku dhiiragelinaa, laga faa-iideystaa, in laga faana ma ahan. waana qof walba cuno uu heli karo, oo yacni cunooyinka ugu raqiisisan ay ku jirtaa. marka waxaan igula talinayaa digirta inaad ku faa-iideysataan. asxaabteeda waa idin jeclahay. videoga share dhaha, like saara, subscribe siiya. khayra idin dhaafay. intaa video kaleeto idiin soo duubayo insha allah. khayra isku dhaafnay. fi amaanillah. mac salaama.